xusuuso qaar ka mid ah hadaladii maxamed xaaji ibraahim cigaal madaxweynihii hore ee somalilan ee ku geeriyooday dalka south africa 3 bishii may 2002 laguna aasay magaalada berbera 6 bishii may 2002 shantii bishii May 1960 magaalada London Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu gacantiisa ku soo saxeexay in Somaliland xurnimadeeda ay ka qaadato dawladda Ingiriiska 26 June 1960 hadal ayuu ka jeediyay maalintaasi shantii bishii May 1960 BBC da uu ku sheegay in xurnimo la heli karo hase yeeshee ay hanashadeedu aanay fududayn waa kuwan wariyaasha Xuseen Maxamed Bulaale iyo Cismaan Xasan oo BBC da ka tirsanaa عزوينا بلينا دقيستان إريادي قيمها لها وإذا عادة في صوماليا BBC ده وكشيء محمد حاج إبراهيم عقاو وحياتها هنا إن لوضع مغلي ما أنت محايا إذا كانوا سكترجع جواب تيسي وحي نقطي عارفين كيسي دي أنا دوني إنه ودعي إن كل يكون درسين تيبان مريم ده ما أنتي أنا نيو ما أنتي سنين تي أيام هذا كيستاد مركا وحنا يدود إنجليزي أول بوسي قانيد وحي دوني يعني نيرهان أساها إذا ما شو كتير وحلا هويناي وحن للدوني دولة بدل للدوني مدتك ولا الدوني ده قل معنا قعنت ولا يجلسوا إنه يتهيئ كلا له بسنة فطلعوا دي عشرة هران مسرقني بقى بعدين نحن كل بارة يدتك ماشي شوقة يدتك سيد حدونا يعني سألوا إيه جاي يعرفون إنه هو ده بيهاي إنه هاي تشبه
arrinku inaga yahay in la baariyay bixi dabeetana markii taasi caddaatay maalintii arbacadii gelinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary magaalada dabeetana khudbadda nimka la sheegay ayuu akhriyay hadalkii waxaa weeye guntiisii bisha kowdeeda juulaay kowdeeda inaynu dawlad ahaano si aanu walaaladeen Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiis noqday waxa aad degeysanayseen erayadii maxamed xaaji ibraahim cigaal khudbadiisii uu ku bilaabay waxa uu dabadeedna halkaasi u dhaafay erayo ku saabsan mucaawanada dawladda Ingiriisku ay siin doonto Soomaaliya xaggeeda waqooyi markay gobonnimadeeda qaadato iyo amuro kale oo ku tacalluqa dalkaasi siyaasadihiisa dabadeedna waxa uu ku dhameeyay hadaladiisii erayo qalbi qaada oo xigmad leh oo uu Soomaaliya farta ugu fiiqay in ay u baahan yihiin shaqo kulul marka maanta wada dheer oo aynu soo maray ayaynu maanta maxaa hayday joognaa madaxeedii asaxaatay midkii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelaynaa dawladnimo loo qayliyaa dawladweynan doonayna la yidhaahaa waa suura gashaa maanta dee naba soo qaylinay helay dawladnimadiina asaxaatay ka adag wuxuu yahay ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay dee helay dawladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayayna la imanaysaa marka iyadii maanta dagaalka kii horeeyay ayaynu maanta helayno weyn garayn kuna jaxnay kamaanta inuu harayna kii ka weynaabu waxa nabiga laga sheegay sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fariistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo nin waliba maxay hayday qoontiisi dhaayo ayuu la yiri dagaalkii yaraana maanta weyn ka soo baxay kii weynaana inuu soo galo asxaabtii wada naxday baa leeyahay markaas leeyahay ya rasuulullaahi dagaalkan maanta galay mid ka weyn ma aan filaynin ka weyn waa maxay dagaalkan aan soo galay midaynu cadawla dagaalamayni buu haabiyay kayna maanta galayna imika galayna inoo harayna waxa weeye kayna nafteena la dagaalamayna wixii xun iyo wixii san nafteena ka celinayna wixii sanna ugu diraynay markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhamaynkaas way naga tagayeen July maalinta July baynu Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniga iyo diinteena baynu talinayna magaalada ku hadhay baa hawle haysaaye talada maanta tala weyn weey inaynu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leeynaga baxajnabi inagii amaanta leeyno kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa inay eegay ilaahay waxa inagu la qabtay wuxuu ahaa mudane maxamed xaaji ibraahim cigaal oo hadlayay bishii May 5 sanadkii 1960 mahadsanid xuseen maxamedow 1967 markii maxamed xaaji ibraahim cigaal uu noqday ra'iisul wasaarihii dalkii Soomaaliya ayaa waxa ka wareystay barnaamijka dawladdiisa cusub wariye Cismaan Xasan waddanka sideenan dhaqaalihiisu xun yahay ama miisaaniyadiisa cajzi ku jiro ee aan iskeenin laba siyood baa wax laga qabtaa mid waxa weeye in dalka khidamaadkii dhaxdiisa laga qaban jiray in la dhimo oo dhakhtarada la yareeyo بليس كلا ديمو أرمي كلا ديمو دولة دتك أو شقية لا ديمو أو سيدا ميزانية دي مركا ناقص لناقصين أيو ليسوا قارسين سيدا سوى حوالي سيان مركا دقارة كوكردينيني وحي تشري أمبا وحلا ديمي أيا وحلا قديمي أيا وحلا كرديني يا ميشي ما يتشرين وحي يتهاي إني تهاي دي أنا في الصومال كلمة دقو بارو إسنوغ دقارة هو دك إسنوغ إسنوغ يو أكلوي sida kale ee caalamku wax kaga qabto anigu aan sidii kaga dayo waxa weeye in dalka wixii ka soo baxay la kordhiyo oo dadkii sidii markaa waxay loo kordhinayeen ay noqoto in dadkii shaqaalihii la ballaariyo oo dhul wax ka soo baxayaan markii la helo inta dadka shaqeeyo loo sameeyo wax ka soo baxaan oo mesela meeshii hadii ay lagu khasiro milyan shilin ay 4 milyan soo saarto markaa 3 milyan faa'iido ayaa meeshii ka soo baxay marka aniga waxay tahay waxa aan kordhiyay waxa wadanka faa'iido u keenayo taqadum keenayay ra'iisul wasaare ma kula tahay dawladdan aad samaysay inay heli doonto sawdkii kalsoonaanta arrinkani arrin baarlamaan ku shaqo leeyahay weeye kalsoonida maxay ahayd dawladda helinkeeda iyo waayisteedu marka gacan rag kale wax ku jira waxay la tahay casnimo yar baa ku jirta hadii ay sasiisi oo la yiraahdo waa helaya waxaan silahay anigu si inaan helayaa waan qabaa sababta aan qabaana waxay tahay de waxaan ahay neeftiin oo kale hore waxa la eega arkayo xumaanina ma ay jiro dadka in badan oo guri ay qabtaana way jirtaa marka in raggii baarlamaanka yiraahaan bal ninkan aan eegno wuxuu la soo baxo ayaa filanaya marka sidaas ay la tahay inaan fiqo ku helay ra'iisul wasaare wadanka
intiisa badan waxaa iminka aada looga dhawaaqaa khiyaanada iyo qaraabakiilka iyo xukmi xumida xafiisyada dowladda aad uma damacsan tahay waxyaalahaas xunxun inay la dagaalanto oo ay baabi'iso. maanta warqad dheer baan u qaybiyey dadka dowladda u shaqeeya waxaan kala hadlayay sidii bal iyaga dhaqaalahoodana loo hagaajinayay sharafkoodana loo dhowraayay iyana dalkii shaqadiisii ay ugu dadaalayeen ee dadkii u simayeen ee horumarkii dalka ay sahmiga uga qaadanayeen. marka wax hore anigu aan ka daba tegay inuu jiri jiray anigu waxaan ku qalqaal jiraa haatan haddii aan halkii qabtay in labadii geesoodba raggii isna wax dhaqaaleey iyagiina la dhaqaaleeyo isna wax dhaqaaleeyaan oo Soomaali la simo oo dalkii iyo dadkiiba loo shaqeeyo oo loo noqdo maxay ahaydeen loogu shaqeeyo si xilkasa oo adduunkii dalkana maxay ahaydeen laga dadaalo in wixii dalka soo galaa dalka soo gaadhaan inay fardhaxdu ka dusin. anigu arrin ka dadaalayaa weeye hore waxbaa loo sheegi jiray waxaan leeyahay raggiina waan kala taliyay aniguna waa iska waaniyay waana in lagu shaqeeyo waxa la tirana haddii jireen la tiro haddii aanay jirin in laga dadaalo aan dib aan u bixin ayaan ku dadaalaynaa. ugu dambeystii ra'iisul wasaare maxay noqon doontaa siyaasadda dibadda ee dowladdaada khusuusanna maxay noqon doontaa ta ku saabsan dalalka Soomaalida ee maqan? siyaasadda khaarijiga ee dalkan waxay noqonaysaa sidii aan ragga radio Soomaali maalin dhawada ay weydiiyeen ugu jawaabay ama dastuurkeennaba ku qoran ee ku cad siyaasad dhexdhexayna ayay noqon doontaa. laakiin iyadoo dhexdhexayntaas ayay haddana noqon doontaa siyaasad si cad u dhisan oo dalkan wixii xumaan ugu maqanna xumaantaa ku og wixii walaalnimo wanaag ugu maqanna wanaagaayo walaalnimadaa ku og oo maxay kula garab taagan. dalkii maqnaa arrinkiisii waxaan leenahay dastuurkeennu sida uu qorayo wuxuu leeyahay dalkii Soomaaliyeed ee maqnaa in la doonaa weeye sifa silmiya oo nabadgelyo lena in lagu doonaa weeye. ilaa maanta dowladda Soomaaliyeed 7 sanadood ay dhisnayd nabadgelyadaas ayay daba haysay oo ay ku doonaysay dalkii Soomaaliyeed. bal maanta annagu waxaan isku dayaynaa inaan annagu oo tii wadayna oo raadkii uun haynayna waxaan isku dayaynaa bal sifa diblomaasiya in dadkan aynu maanta maxay haydeenahay jaarkan hay hareeraha inaga xiga in haddii walaalnimo wax laga heli karo iyo wanaag wax laga qaban karo in laga doono ilaa intii laga quusanayo. mahadsanid ra'iisul wasaare. الله نحرسته محمد حاجي إبراهيم عقال ورئيسي سنة 1976 ayaa waxa ka qaaday Ismaan Xasan oo bariga BBC ka tirsanaa 27kii bishii February 1968 oo cigaal uu ku biiray xisbigii siyaasadda colka ay ku ahaayeen ee SYL waa kan radio Muqdisho oo markaasi wariye ka tirsan uu ka waramayay. siyaasigii weynaa Maxamed Ibraahim Cigaal oo ka mid noqday ra'iisul wasaarayaashii ugu horeeyay ee soo mara xukuumadihii rayidka ahaa ee dalka Soomaaliya ayaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeenan xusuusta kaydka radio Muqdisho 27kii bishii 2 1968 ayaa codkani loo qabtay kaydka baaxadda weyn ee radio Muqdisho xilligaas siyaasigii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal loo dhaarinayay xubinnimada xisbigii SYL waxaana kadib dhaartiisii uu halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay. والله بان ku dhaartay بالله بان ku dhaartay والله بان ku dhaartay inaan amaano iyo ikhlaas ugu shaqeynayo xisbiga intii samartaya أخواني ما نكعين هذا البدن لو أرى يوقع قابر وقرأ أيان لكعي مدنا وحي هاي بلن يا عهدي مدنا يقول ورق أمس كور ربع يجيه مدنا شكر بيجي هاي حرية من شكر بيجي هاي أو واحد هاي قلب بدن يدعو برايم مستر إحان لا يجي شذي وحزب جن ينواب تيسو يشعب يجيسو بقى قلب بدن هورن لقول هاي تنعاون لوgu daray culaysna la saaray inay tahay oo ogtoonahay ayaan idin sheegaynaa mahadna aan idin ku naqay midna ballan bay iga tahay oo waxay tahay maanta xilkan xisbiga la iga saaray aniga iyo xukuumadayda labada inta yaduba ballan waxaan qaadaynaa annana galadaasna la gashaday
inaanu ku gudno dadaal tamartayo intay gaadho iyo waxadhin aanaan waxba la hadhin iyo wax laxajaalo aanaan wax ka laxajaalaysanin iyo hagar aanaan wax ka hakranin intaa inaanu ku abaalgudno ayaanu ku ballan qaadana midna warba iga tahay oo waxay tahay warkaas iga yahay halkan haddii laga hadlaayay dhowr casho waxaad moodaa ragga dadka qaar in xoogaa breekibashoonihii ku jiro oo maxay ahayday walwalniyadda kaga jiro oo laleeyahay war meeshan ma laga yaabaa wax cusub baa inagu soo kordhay waxaasi si aynaan moodi jirin ama si arrinkii jubjuub ku galo inay dhaliso ma laga yaabaa in dad ay halkana walwal ka muujiyeen niyaddoodana ay ku jirto ayaa laga yaaba waxaan doonayaa markaa taa inaan iska warramo xisbigan madaxdiisu waxa weeye maalin dhaweyd oo la isku qabtay dhexdiisa oo arrin ka dhacay oo aad iyo aad cadowgiisuna ugu faraxsanaa dadka intii kalgacalkiisa ku jirayna ku niyo xumaatay oo la yidhi war malaha waxaynu joognaa gabaldhiciisii xisbigan 19 nin oo madaxa ayaa u baxay oo maalintaa u helay solution rasmi anigu marka waxaan saakiin warramayaa waxaan ictiqaadsanahay aniga waxa maanta la isaaray laqab sharaf naanayd sharaf oo inay tahay dadkan xisbiga madaxdiisu inay tahay 29 intay ka koobmaan iyo intii la mid ah ee xisbiga u maqan inay taladiisana uu leeyahay xisbiga ay leeyihiin madaxdiisana ay yihiin baan qabaa marka nin tala la fakanaya oo arrin la tagaya ma anihi xisbiga ilaahay rag guusiiyey oo rag fiicana oo maalinba arrinka joogo rag ku filan oo u qalmi kara oo ku koobi kara oo dabooli kara ah ayaan u qabaa inay madaxdiisa yihiin aan taladiisa aanan ka lahayn iga leeyihiin instrument waan u noqdo mooyaane nin tala gooniya iyo xil gooniya iyo wax gooniyu isagu leeyahay maanta la fulaayo maanihi waxaan leeyahay markaa ciddii uu warwar kalkaa kaga jiray ballan waxaan qaadaynaa wax samaada mooyaane wax kordha inaanay jirin tala la wada yeesho oo sii fida mooyaane mid cudub gooni ahaataa inaanay jirin waxaanu ictiqaadsanahay xisbiga madaxdiisa inta halka fadhida maanta ra'iisul wasaare Cabdulla Cusmaan ugu horeeyo inay madaxdiisa u ictiqaadsanahay taladiisa inaanu ka daba joogi doono wasalaam calaykum maxamed xaaji ibraahim cigaal markii la dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharma Arke 15 bishii Oktoobar 1969 waxa uu ku maqnaa dalka Mareykanka waa kan wariye Cabdisalaam Ibraahim Hereeri barnaamij BBC-da laga sii daayay ra'iisul wasaarihii dalka maxamed xaaji ibraahim cigaal markii madaxweynaha la dilay wadanka dabadda ayuu kaga maqnaa waxa uu joogay dalka Mareykanka oo uu kaga qayb galayay kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkaasi kulankaasi Mr Maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ka hadlay bishii Oktoobar 7 sanadkii 1969 oo 2 toddobaad ay ka horeysay waqtigii talada dalka ciidamadu ay la wareegeen hadalkii maalintaasi Mr Cigaal uu ka jeediyay qaramada midoobay waxa kamid ahaa waxyaabihii uu u doodayay xuquuqda Falastiiniyiinta iyo in dalweynaha Shiinaha loo ogolaado qaramada midoobay wadankaas oo sida aad imika ka warqabtaan kamida wadamada awoodda fiitooda ah ee diidmada qayaxan la yiraahdo kulla qaramada midoobay oo xubinna ka golaha ammaanka bal qadar aanu idinka maqashiina hadalkiisii oo af Ingiriisiya We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight if the principle... waxa uu yidhi maxamed xaaji ibraahim cigaal suurtagal ma aha in dal aynu ka doonno inuu xishmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aynu iska hortaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka aynu go'aamada ku gaadhno waxa taasi soo raacda buu yidhi inaan la filan in awoodda jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay miisaan yeelato haddii mabda'a ah in adduunyadu ay wax wadaagto indhaha laga qarsado waxa igu filan buu yidhi inaan idhaahdo in aniga iyo waftigayguba aanu taageeri doonno sidii aanu horeba had iyo jeer u yeeli jiray wixii go'aana ee u suuro gelinaya jamhuuriyadda dadka ee Shiinuhu in kaalinta xaqa ay ugu leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay haddii ay ahaan lahayd golahan loo dhan yahay ka ammaanka iyo hay'adaha kaleba
maxamed xaaji ibraahim cigaal markii taladii soomaaliya ay boobeen kooxdii saraakiisha milatariga ahayd ee uu hogaaminayay maxamed siyaad barre 22 oktoobar 1969 waa la xidhay 12 sannadood kadib ayaa la soo daayay dalkiina wuu burburay jabhado ayaa kacay dhinacii waqooyiga SNM ayaa qabsatay oo markaasi ku dhawaaqday gooni isu taaga iyo la soo noqoshada xornimadii 1966 Juun ee markaasi gobolada waqooyi xornimadooda ay ka qaateen dawladda Ingiriiska maxamed xaaji ibraahim cigaal oo markaasi shaariqa ku nool dalka Imaaraadka Carabta 5tii bishii May 1993 ayaa boorama loogu doortay madaxweynaha Somaliland oo halkaasi looga yeedhay waa 3 sano ka bacdi maalintii uu soo saxeexay xornimadii Somaliland 5tii bishii May 1960 wuxuu u guntaday in uu hubkii uu ka dhigo maleeshooyinkii qabaa'ilka ee SNM iyo beelihii kaleba isla mar ahaantaasina uu dhiso dawlad casri ah 1994 cigaal oo hubdhigistii dadka kula hadlaya Hargeysa Stadium waa kan halkii uu joogay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii aad u dirtay yasir u dirtay halkii uu joogay annagoo joogna dadkana adigu adii qadartay inaan madax u noqdo waxaan kaaga baryayaa ilaahay ow dadkan waxaan kaaga baryayaa اللهم ألف بين قلوبهم كما ألفت بين أصحاب سيدنا ونبينا محمد اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم وأيدهم بالروح من عندك وأيدهم بالروح من عندك وأيدهم بالروح من عندك وارزقهم من لدنك رحمة ورضوانا رحمة ورضوانا رحمة ورضوانا آمين والفاتحة markale maxamed xaaji ibraahim cigaal oo dhaarinayay booliiska Somaliland baa ilaaha dadkayadii waa ka adkaan dhageysanaysa iyo intiina halkan iga taagay waxaan idin leeyahay waxa iga daba tirahaan waxa igu wallaahi iga daba dhaha qayl ku qayliyo sara u qaado waxa igu wallaahi waxa igu bilaahi waxa igu tallaahi إلى ضدك هير Somaliland بليسك وهاي إيسي ما يهين وأن عدالة النصاحة ولا النمو وناك أنا نقول غيني الله يدي لك أفتح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan qaran waa loo maalin qadaa ayuu yiri marka dan mar la xusuusan doono daarada dheer sida maxay ahayd khaliilka ragiideetay daarada dheer ma inuu Hargeysa ka dhisi doonaa baa jira wadooyinkani maray wadada hilaac doonaan baa jira ubaxa meelu ka marro maray heli doonaa baa jira manafsuga laakiin waxay doonaysaa in loo maalin qadaa hashii la oran jiray waa gaaxiya maan caawa ka seexda hal bay oran jiray caawa laga seexdo waa wiiga ka seexan aanu dambeelo dan weyn saynu u gaadno qariirkaynu maanta hayno shinida yaraynu maanta hayno aynu u dambeelno maanta u dambeelno oo aynu nin walba ka soo raasaano hadii alla yiri anigu arrimada aan doonayo yaanu ku dheeraynay ayaan doonayaa inaan maxay ahaydey aan geeyo gorayaasha kuwa inaan xariixayso damba xadin inaan suuba salaax damba xadin inaan cid baa wax ka soo socdaan aynaan dib isugu dhakrin inaynu inagu maanta muruqeen iyo maalkeena wax ku doono maankaaga la kaasho وهذين لامين نقولنا وإن طبعا كيسنا ميل كتورو سرد كتورو تقول يا ولي قد نقول مين وعاف ودنا إنه عن وحوي والمان كاجل لك أنا وكان لله هاي كان لله هاي مكا يا مركز تكتنفع كلمة والله خصوصا ما نكين لك سر وهذا بعد الواحد لا يشاك ترى الكفر بعد البقرة واحد نهاية واحد الله يرام معي خديعة معنا كقرتان وما نكيلو تصير أخواتي إلى الله يأخذهم
waxaan ahay maxaa yahay madaxweynihiin waxaan ahay ninkii aa madaxweyne ka dhigateen idin madaxdaan maanta waano iyo wacdi waxaan xaq baan idinku leehay waano iyo wacdi hadda idinma aqal fiirin laakiin waxaad moodaa dadka markaad madaxda tahay in meel wax kaaga meel aan adiga taan iyo garaadkaaga iyo caqligaaga iyo boggaaga iyo ahayn in meel wax kaaga dhibcaan meel wax kaaga soo dhibcaan ba ayaad moodaa waxaan leeyahay walaalayaal lamigiisiinaan noqono waxaynu isu nahay waxaynu isku qabnona aan ogaano wixii danteenu tahayna nin walba waa cid kale ha weydiinin maankaaga la kaasho waxaa lagu sheegay maankaaga la kaasho maankaaga nin walba la kaasho maxamed xaaji ibraahim cigaal bishii oktoobar 1997 waa kan isaga oo ka hadlayay xabaalihii dad ciidamadii siyaad bare ay ku xasuuqeen duleedka Hargeysa ee malka durduro la yiraahdo oo markaasi bishii oktoobar 1997 ay daadadku ay soo qofeen isagoo markaasi khudbadiisa kaga waanayay dadka wax argoosi la yiraahdo isla marhaantaasina ku boorinayay in ay haataba ku far adeegaan xornimadooda بصفة محاي هيدي صراحية إلى عمود المامو وحيدا دكتي نقف عاشق غير لك ولي انت لفريسو وار محاي هودنا جاي ما قرانا إذا دكتين ومحاي تاني بلد انت عينا قرانا إذا دكتين يا إنو قلبها ما في شهر لمو أما قبيلكي أما محاي هيدي عدو دكتانا يرفرسو انت الوحان دكتين يحين دبت شوبلو بيناله كري تليين نقول نقطة أو ظالم أو جائرة مواي أنا أقول لهم ماي والله ما أدري كذا ما أدري ترى إذا ودي كري واي إذا هجامي كري واي واي كتير لكن قول إذا كورو لين ماي إذا كرباش ماي وإذا حاول يرتاح يصير لين كرباش ويحاول يرتاح يصير لين البستة ويحاول يرتاح يصير هجامي يدي كحلا ويحاول يرتاح يصير تاسو كلام سمايان آديات يقول يقتاسو إبريتو للمدحو يفاهم كتاك لين يسمي وعمان تبقى فكي كمان تيدينك يوحيا سيديبا محاي كل عضي محانا كل نختبنا وقلنا محاي شالي كل عضي محانا يستيب شال مرضب وقلنا كريتاوي سنسويدي وانا جوابته من قروي شالي طايا هالكاليتو وقلت في بشرية الضباط اللي باهي يفوت بحنالي meesha markaynu ka soo baxnay baa rag yiri waraabaha iska ilaalin waraabaha markii dooranayay shan iyo tobanka muwaadiniin maxaan ku akhri maxay ahaayeen maanta kala kii shalay la dooranayay intaas isu raacday dooratay iyo waraabaha maanta la leeyahay laydinka celiyo wuxuu galay waxa weeye dantiini bayaan idinka markaa lay dooranayay dan layguma doono ee calaf ilaahay ii qoray maanta marka maxay aynu wada joognaan weli ilaa dantiina garata oo waxay dantiina ku jirto meesha wadadaas weeye dadayeen waxay marayaan lagu xisuuna shaydaan ha noqdo jin ha noqdo jaan ha noqdo bidow ha noqdo bideer ha noqdo waxa wadadaas dadayeen waxay marayaan wax laga dhaxeeya taa markay hay ku ilaabiya garata weligeed dib u dhamayso dadara saxabka maxaa la ii saaraa بيري بالمحل لو قبنيا أنا محل يسينيا أنت عندك كانوا كاي الدولة دلوقتي ركوب يصنع هذا دمو أما من قبيل من بلد من قف من خويش فرق أنت كل يصنع هذا تعال هورن بنسأل العمي بنينا تغطونتا ساعة بنينا تغطونتا إسرائيل دوام سوقوس ينو معهم برشا أي مسافر أنا إني شري لحدا كي خلاص سمي شري أنا واحد نكون تجني جيب ما أنت أنا واحد نكون نجيبه جيبه مالي نجي يستعمل جيبه تاوي يا أحد جيبه يا فكرة تكرم يا إسكار يا ترى أنا واحد تاسوي واحد يدحدي تاوي يدحدي واحد ما أنت إليك ما بعنا ويقول علينا إذا كما باهنا إلى وانتا إذا كما باهنا إلى ويدا بل ولا تقول كجهر يسترميش يا إبتوعي بالجوعان من لكن هو حرام وحيكون رضايا وأنت لقيت نوجيرين دم بيحي دبحي وحي كلام حي بدو البيت لقيت نوجي بعض كل رجع من
moodaa maxaa xabliga ilaah uu ku saaro meelama kici waayo awrkii kici kari waayo dameerkii la dhutinayo ma boog laakiin rag baa ku reerayihiin maanta ku aadbalkiya xudaan ku sheegay waxay la luudayaan ee aad moodaa ul isku xubisay waxay la luudayaan idinkama baahna ma idinkaa uga baahan factabiruu buu ilaahay factabiruu yaa ulu nafsa waa wixii wax garanayo abra qaado waxaad aragto abra ku qaado abra qaadasha maanta innagaa u baahan inay ku cibra qaado waynu wax ka qabanaya dib u dhaco dib bay u dhacaysaa haddaynu saynu maanta u socono si fakir la-aan qiimo la-aanta ee diinteennii iyo qiimaheennii iyo qadarkeennii oo dhammi uu ku xidhan yahay mijintaada intaynu u caqli nahay kulligeen reer soomaaliyaal oo dhan meel kastoo joogo mijintaada inta caqligeennu ku xidhan yahay ee wax walba ina gelinaysa deel bay ina gelisa kaas kuwaasi waxay u dhintay wuxuu ilaahay kama foga inay mijintaada u dhintay mijintaada inay u dhintay kama waxaynu taasi aanay dib ugu dhici karin oo ay maanta mucjisada iyo ictibaarka actabiru uu ilaahayna leeyahay uu nagu tusaya daad u soo saara waxa weeye haddaynu ku fakirno oo aynu baranno oo aynu ka deeqno oo aynu qalbigeena aynu dib u fadhiisano fakir qur-aanka ilaahay markuu bini aadmiga la hadlayo alaa tatafakkaruu alaa tactabiruu alla waa miyaydaan fakirayn miyaydaan waxay hore xusuusanayn miyaydaan ictibaar ku qaadanayn waxaa aragtaan miyaydaan ka faa'iidaysanayn intaasaa qur-aanka aayad waliba ku soo aroortay ilaa aynu fakiran oo nabigu ninka mu'minka ah laba jeer dhagax kuma wada turturro waayo kii hore waayo caqligana cilmiga iyo diinta iyo iimaanku caqligana ay ka yimaadaan caqligay beer nin caqli ha dhagax laba jeer kuma wada marka mu'minku laba jeer dhagax kuma wada turturrooda markuu nebigu leeyahay wuxuu leeyahay mu'minku ma fakiro ma fakiraa wey marka turturradii hore waa taas turturradii hore waa taas waxaan leeyahay beel wuxuu inoogu hagaagayaa ma jiro qof afmiishaana wax isiga ugu hagaagayaa ma jiraana waa laantaada mijintaada weeye waxa wax inoogu hagaagayaa waxa weeyaa ka fakirtaa waa maxay ka jirta waddo u fara dantiina waddo u fara ninnaba hadin jeclaysina iska dhaafo nin necbaysina iska dhaafo dantayadii waa taas waxay wadaan wax dantayadii waa taas u garta dantii ilaa aad garataan waxaa dantiina maxaa dowladda u falay aakhira dowladdu inuu shafeeca qaadaysa nin waliba kuwaas oo kale gudka uu galo wuxuu ugu imanayaa ma jiro dowladina ku iman mayso aabuna ugu iman maayo laa ansaaba baynahuma maanta halkaa ka soo baxaan laa ansaaba baynahum wax ka dhexeeyaa ma jiraan sababtu waxa weeye wixii naga dhexeeyey maanta aabba igu ahaa ee tolku tol igu ahaa waxa weeye jidhkanaa ka dhexeeya oo naga dhexeeya baal chromosome la yidhahda ayna ku wada aakhira marka la tago jidhkii abuur baa ciidda aakhira marka la tago waxaa soo baxayaa ruuxii wey ruuxuna ilaahay ku nafkhatun min allahi ilaahay lagu abuur marka aabbihiina kama iman hooyadiina kama iman sidaa daraaddeed laa ansaaba baynahum marka halkaa laga soo saaro laanta wax ilaahay ka dhexeeyaa ma jiro cidad ugu hadlay ma jiro wixii kaa horreeyaa dhigatay ama khayr ahaade ama shar ahaade ayaa kaa horreeya iyo ilaah gafaaru raxiim ayaa kaa horreeya wax kaloo abaduule dowladdu waxay tahay halkayna wax wada qabsan maxaa dowladdii ka filaysaa dantaa u dirateen ilaa ninkii adoobiya ee aad xoolo u dirato xoolaha raacay nin wargeelaan ku raacay adiga gaarahan ku raacay adiga irmaankan ku raacay adiga adigaan ku raacay adiga maqashaan ku raacay intaasaan ku raacay sida galab marku soo waa la tiriya waxba ka lumay soo wada xerood bal waxaa maanta ka filaysaa dowlad anaga waxaa nala weydiiyaa quri waxa weeye wax maa ka fita dadab gacan sacad wax la saaro wax ku daga waxa weeye halla bal idinku nin jeclaysi iyo nin nacbaysi iyo nin mid walba intaa dhaaftaan hortu mar baayasha baasaa kaalka ku xuntaan ee waxaan dan ahayn oo aan maxay ahayd wax allaaliyo wuxuu wax ka faa'iidii jiray laga shubaayo maalin walba halkana reerbaa hebelo reerbaa kala hadlo berigaa meesha ku xidhay ayaa maqsad keligaa markaas 12 sano ku xidhnaa sabakiraad wax kale markaa walaalaha ka sheekaysa ayaa isla sheekaysan jiro markaas raggii aan saaxiibka ahay marka waxa uu soo gaara ka soo
قرآن صاحي وحب صاحي أيها رجي قبل مجال ده رجي بدري وأنا والحق وده ما لهم قرآن أنا حق مضى عن مثلي واحد تسوى ما لهم قرآن بدون ما ويرى عن مثلي واحد تسكر واحد كان سمان الله نوارك لا تورر لا عن كذا هذا من الله كذا وحلال وحل محيط وعارف حق وده زيبان أيوب رجي بدر ما يجي وبدر رجال معروف وأنا واللي ما كان حق وده كاسا ما أنت نقوى الفكرة كل قوة دخل بهاللي قوة يدي وأرواح محي وحي نسأل شديد أنا رجعت كل شيء وحي ما تدي دوري أنا محي تحياتي الصوت اللي دولتي حكي محي الوتر هالكي والدنيا بينوف الله يهكمر يا الوتر أفشل وهالكاين مرة اعتبار بالله يوصل آري وآري الله بصوصا لو يسكتوا لو يسكتوا عننا الله بصوصا نول ما فوقش وقت ننها كم مقنع فير كم مقنع فير كم مقنع حد كم مقنع مدير مدهر مدسرع مدبر مدير بورا عن اللي يجي أنا قال شيء أنا قال كم مقنع يجي bishii May 31 2001 shacbiga Soomaaliland aftidii dastuurka Soomaaliland ayay ugu codeeyeen oo 7% ay ku meel mariyeen ansixinta aftida dastuurka Soomaaliland bishii August isla sanadkaasi 2001 ayaa madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Allah u naxariistay waxa uu gacantiisa uu ku saxeexay xeerkii doorashooyinka xisbiyada badan oo markaasi uu doonayay inuu ka dhaqan geliyo nidaamka dimuqraadiga ah Soomaaliland isagoo markaasi saxeexay xeerkaasina waxa hadaladiisi kamid ahaa 20 minute ilaa 20 minute baan waqti ibsinay marka inta anigu aan doonayay inaan ilaahay waxa weeye mowqif adag baynu maanta hadaynu Soomaaliland nahay marayna 10 sano ayaynu guri dhisay ilaahay waa inala qabtay meel wanaagsan ayaynu inoo maraysaa dhismi maanta saqafkii saaristiisii ay qura ayaa inoo hadhay inaynu qaran iyo dawlad iyo dal iyo dad walaalaha nabad iyo istiqraar iyo ku wada nool inaynu dhisno waynu soo dhamaynay maanta istiqraarka ayaa inoo hadhay dastuur baynu fulinay oo aynu maxay istiftaa u qaadnay 97 boqolkiiba 97 ayaa proof gareeyay oo maxay ansixiyay dastuurka ansixiyay waa ogtihi nin kastaaba beena ka sheego nin kastaaba maxay leeyahay wuxuu doonaha yiraahdo waa ogtihiin inuu istiftaagaasi ku dhacay amaan iyo nazaahad iyo maxay hayday uu ku dhacay oo aan wax ku shubasho ah la oran jiray ama maxay hayday been abuurigi aan ku jirin ay raqabadii shacbiga oo sawiran ka soo baxday meesha 97 boqolkiiba 97 baa dadkii reer Soomaaliland doorteen oo ansixiyay inay qaran noqdaan oo ay maanta maxay hayday ahaadaan dal dastuur leh oo sharci asaasi ku wada dhaqan oo mid walba xornimadoodii iyo madax banaanidoodii haday xisbi yihiin iyo haday shakhsi yihiinba iyo haday qowmiyad yihiin iyo haday koox shaqaale ah yihiinba xorriyadoodii ay ku qoran tahay meesha ay tahay barigeeyo maxay hayday Maxamed Siyaad inaga dastuurkii aynu ku walaw aanu hayn dastuur wanaagsan dastuur Talyaani sameeyay laakiin calala qaadana dastuur qaran ku dhisnaabo maalintii la qaaday wali waan laabay waxay u qabeen dadkii berigaas 20 sano horteed waxay u qabeen dastuurka la laabay in maxay hayday dawladii maalinta dhisnayd iyo madaxweynihii maalinta dhisnaa in laga laabay in la laabay bay u qaadeen in iyaga xorriyadoodii iyo madax banaanidoodii iyo wixii ay asaaskii qarannimadooda in la laabay may daadin oo may ogeyn damata 20 sano dabadeed shacbigeeni waxay la tahay inuu fahmayo wixii soo gaaray iyo wixii la soo mariyay inay og yihiin maanta dastuur wuxuu yahay dastuur ma aha warqad nin qortay waan ka gaabsaday anigu 9 bilood ee lagaga hadlaayay baarlamaanka iyo guurtida lagaga hadlaayay ee laga dhabaafina in eray qora ku darsado oo la yiraahdo shaad buu ina cigaal tolanaya wax badan oo aan u arkayay markaa inaanay habboonayn baa lagu qoray dastuur eray kama oran laga daayo iyo lagu daratoona mid kuma oran waxa inta ka dadaalay inaanay dhadhansan shacbiga Soomaaliland inaanu dhadhansan aynu kan oo kale mar
hawl yaraato sida maxay hayday looga doodo ama looga maxay loo ansixiyaa ama hawl yaraato waayo arrin weyn weeye dastuurkii ka bacdi oo asaaskii sharcinimada iyo jiritaanka Somaliland asaas u ahaa ka ku xiga ahamiyadiisa isaguna leeyahay waxa weeye sharcigan maanta aynu hayno oo qeexaya sidii shacbiga Somaliland ay u dooran lahaayeen madaxdooda iyagu u dooran lahaayeen wuxuu qeexay dastuurku in ay shacbiga Somaliland uu yahay meesha ay ku degan tahay ee ay ku rasmi ku tahay siyaadada iyo madax banaanida iyo xorriyadda dalkan Somaliland marka isaga shacbigaas ayaa cidii madax laga dhigayo madax ka dhigi karta cidii loo diidayo loo diidi karta wixii sharci noqonayana iyaga ayaa maxay hay'adaha saxan kara marka qaynuunkan maanta aynu hayno ayaa ah xukunkii labaad dastuurkii markii laga yimaado xukunkii labaad ee ay ku taagnayd jiritaanka Somaliland ay ku taagnayd ee shacbiga Somaliland ay gacanta u geli lahayd siyaadada iyo xornimada iyo jiritaanka Somaliland marka maanta sharaf weyn bay ii tahay inaan raggan horteeda wax kastaba hawliyaa ka soo gaadhay inaan ku saxeexo oo ay sharci rasmi ah ku noqoto aynuunkaas doorashooyinka Somaliland xoogaa qabya abaa ku jira oo ay labada gole isla garteen in dib laga ansixiyo dad waliba maxay hayday xeer jajab wax waa ku qabsanaa waxaa jira dad aan maxay hayday dastuur ba lahayn kolba Ingiriis baa kamid ah dawladaha kuwa waaweyn ayaa kamid dastuur qoran mari kolba wixii ay xeer ka dhigtaan shacbiga isla garto iyo baarlamaankoodu ayaa maxay hayday u dastuur marka laba arrin oo yar baa maxay hayday yar yaa oranayna waaweyn ayay labada gole isla garteen inay maanta qabyo ahaadaan oo dib ay uga fiirsadaan fadhigooda dambe ay yimaadaan laakiin maadaama ayna soo guda galeen doorashooyinkii dawladaha hoose waxay isla garteen in horto intaa maanta la isla ogol yahay in hore laga ansixiyo oo ay sameeyaan sidaasaan aniguna la gartay odaynimadu yani maxay hayday iyo waayeelnimadu waxay ku jirtaa maxay hayday yar socde madaxweyne muddo bay kamaadlaa yar socde madaxweyne muddo arrinkaas in waxaa labadaa qodob ee yaryar ee la yidhi haynoo ceednaadeen maxay hayday anna waa la gartay dib baa laga dhammayn doonaa iyagana wax la isku aadeeyo ma caleha marka maanta sharaf baan u qaadanayaa inaan raggan hortooda iyo saxaafadda xorta ah ee jamhuuriyadda Somaliland ay wax kastoo nala iyo samaan haddana waa ku faana xornimada waxay naleeyihiin Soomaaliya araga waxaas xorriye marka maxay iyo saxaafadda hortooda ku saar marka maxay hayday cidii wax sawiranaysa waa kaas بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan ka arkaa telefishinka ajnabiga dadka qalinka wax ku qaraxaan way bixiyaan laakiin kalimaa mid ugu yar weyn nasiib maayo iska haysanayaan waa kaas marka qolada saxaafadda waxaan leenahay maxay hayday waxa laga fadhiyaa himalo jamhuuriya himalo si loo kala weeyahay jamhuuriya maanteed himalo haye Axmed sanadkii 2001 isla munaasabadaasi ayaa madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa aan ku weydiiyay mowqifka Somaliland waxa uu yahay hadii ciidamo shisheeye ay ku duulaan Soomaaliya wuxuuna isagoo ka jawaabaya su'aashaydaasi uu yiri ayaa ka socda laakiin wax rasmi ah oo xukuumad ka socda nimanka maanta aan sheegayo baan wali aragnay maray ku farxamayn kana qaaliman noqon mayn in dad Soomaaliyeed lagu duulo la weeraro
laakiin awoodan wax kaga qabanno uma aan lihin annagu uma aan lihin haddii alla yidhi haddii waxna laga weydiiyana waxaanu leenahay waa bilatii xasan baa iyo wax laga qabto ay ku fiican tahay maxay ahaydee haloo miyiriyo oo bal maxay ahaydee iyagii haleego caalamku maanta maxay la ugu kala baxay oo saa maqashay waa 11 Sebtembar ayaa caalamkii aynu naqiinay bedelmay oo caalam cusub soo baxay oo argagaxiso iyo wax la dagaalamaya iyo argagaxiso wax kaalinaya labadaa loo kala baxay manihiina kuwa argagaxiso kaalinaya waxaanu nahay kuwa argagaxiso caalamka in laga tirtiro ogol oo maxay ahayd dagaalka wax kaga jira laakiin waaladii Soomaaliya ma ogolaanayno mana ku farxayno mana ayidayno in la weeraro haddii aanay iyagu kasbanin weerar kasbanin oo aanay dadka maanta la daba joogo aanay u noqonin maxay ahaydey dhafaysu noqonin oo u hiilin mar kale ayaa madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa aan weydiiyey mowqifka xukuumaddii Soomaaliland ee markaasi haddii markaasi dawladda Mareykanka iyo quwadaha kale ee waaweyniba ay ka codsadaan in ay saldhig military ay ka samaystaan carrada Soomaaliland siiba magaalada Berbera waxa uu igu jawaabay waxa anaga Mareykan looga yimi oo maxay ahayd aftii ma jirto waxa jira maxay ahayd dhowr jeer inay kula maqaateen wakiilka inoo jooga maxay ahayd Washington iyo State Department-ku hadal un caama oo maxay ahayd muxuu mowqifkiinu yahay dalkiinu siduu yahay terrorism saddegiyo ma ku leeyihiin sida xamar ugu leeyihiin Hargeysa iyo ma ku leeyihiin waxyaabaha inkaas wax weydiinay bay kale laakiin wax loo yimi iyo waxna la weydiiyey in uu maxay ahayd dhulka saldhig laga samaysto ma jiraan waxa weeye dabcan haddii waxaa nolola yimaadona waxa weeye dee saldhig ma bixin karo annagoo aan dawlad caalamku ixtiraafsan yahay ahayn waxa weeye marka u horeysa haddii saldhigna la weydiisanayo cidda saldhigna weydiisanaysaa inay ictiraafto horta aan dawlad nahay waanu caalamka ka mid nahay oo aanu United Nations ka mid nahay oo aanu maxay mucaahadada iyo maxay ahayd agreement-ka aanu kala saxanaa uu yahay mid valid ah inta aanu nahay maxay ahayd gobol sidii nin inuu bardhaweyd noogu sheegay goboladii waqooyiga Soomaaliya cid waxba kala qabsan karo marka cid noo timi ma jirto Axmed maxay ahayd waxna la weydiistayna ilaa maanta ma jirto marka waxna la weydiisto waxaanu ka yeeli doono talaa laga yeelan doono ilaahay ha u naxariisto maxamed xaaji ibraahim cigaal oo jannadii firdawsaha ka waraabiyo xuskiisan aynu xusaynana aynu faatixada u marno in ilaahay uu jannadii firdawsaha uu ka waraabiyo way dhaxal xumaystaan labadiisu dhow iyo labadii isdhalaye la dhoorsamaayo way dhaxal xumaystaan labadiisu dhow iyo labadii isdhalaye kala dhoorsamaayo andaqaaqi andame andaqaaqi wandhoofiyaye dadyow dhaaqa suldaan maxamed maxamuud xandulle waa nin taariikhda aad u haya suldaanka saaxil gabay aad u caan ah oo habeen dhawadna uu ka tiriyey xaflad loo sameynayay marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ay saaxiibna ahaayeen oo gabayga ayaa bal munaasabadan isaga inoo sheegi doona gabaygan inoo tirin doona suldaan kusoo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim waxay ahayd maxamed xaaji ibraahim cigaal ilahay naxariis jannahaas iyo markii la xidhay ayaa isagoo ku xidhan afgooye ayaa waad ogtihiin oo intuu dee waxa dadkii waagtiga qaar waxay ku yidhahdeen maxamed oo hooyadaa way waalatay gabadhaadina waa xaggaasaa loo qaaday abadooyana siday faaliyay doo socotayna waalatay tolkaana waxay ku leeyihin muxuu taray maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu u qaadan waayey wixii uu waddanka u galay hadday ahayd xoolihii aabihii siduu ugu halgamay hadday ahayd siyaasaddii ilaa ingiriiskii kiciyey hadday ahayd markii dambe ee arrinta ay xumaatay oo arkay inaanay leega aanu far kala baxayn leega lafteedii abeese godkeeda loogu galaa all this markuu wixii isu wada keenay ayuu qaadan waayey dee wax inaan abaalkii ahayn
gabay buu ku soo qoray af carbeed uu u soo dhibay absite dacar ibraahim geebuur wuxuu yidhi tala dihatay leegada markuu damacu ii geeyey ee aadan iyo ay degeen dawladdu haystay aniguba dilaal waxaan ku helay darajadeydii anigoon dalkeenna iyo fadhiin degeeladii saaxiiloo higilku ii yahay dugsoo wehelka doonaya in diyaafad aan kariyay oo duulla iman waayey tolku ina xuseen iga didshee doobiga u tuuray inaan moodhikaarra u diraan diricina soo raacin sidaa maragu waa ii diyaar beeni duuguma leh walaalnimo ninkii dilay hadduu cabasho dayn waayey xaajooyin duugaabay oo daalay baa iman waa lay damqaya inaan farama doonayn buush anigoon dalkeenna iyo fadhiin degeeladii saaxil oo higilku ii yahay dugsi oo wehelka doonaya in diyaafadan kaliyo duula iman waayey tolku inaa xuseen iga didshee doobiga u tuuray inaan moodhikaarra u diraan diricna soo raacin sidaa maragu waa ii diyaar beeni duuguma leh walaalnimo ninkii dilay hadduu cabasho dayn waayo xaajooyin duugaabay oo daalay baa iman waa lay damqaya inaan farama doonayn buush dembigan iyo xilkani saaran baa diray naftaydii dalaalkeenna maqan baan lahaa doodsiyay noqon dulmigii wajeer lagu hayay dacas wixii gaadhay dafirtaya ethoobiya intay daalac naga haysay dekadii jabuutina sidii magaca loo doorshay intaan soo deberayay canaanigala daaleen ay gudaha sii dumin jireen ani daraaddeed walaalnimo ninkii dilay hadduu cabasho dayn waaye xaajooyin duugaabay oo daalay baa iman waa lay damqayana farama doonayn buuri tolkay aniga imu darro ima darbeeyaan horraantaanu iga dooran jiray labada daamood aniguna abaalkii ma dil looma duudsiin kuwii dheragga iga doonaya foodka dabadiisa dabaal 10 bilood heshiisma waana dilahayn buur nabi yuusuf ceel dalam ku sii kii dadka xigay nabi yuusuf ceel dalam ku sii kii dadka xigay nabad uga dambeysii ilaa diiq wuxuu baday durdur malaba dad wada janno ah duxyo wada dhay ah nimcada daadsan nabiyaal u digay daru ilaah siiyey reer binu israa'iil ka dude deeqdii loo wacay dambaa bay xambaarteen markay mahadnaqdiideen walaalnimo ninkii dilay hadduu cabasho dayn waaye xaajooyin duugaabay oo daalay baa imane waa lay damqaya inaan farama doonay buur aan degdego daryeel ii samee dheri dabaan saaro idallici haddana aan ku dilo dabina kuu qoolo idaadihii aan gaax darartay iyo dihini kaa maalo cadaawahana meeshaada dagan daawo kula qaato waa laba daloo kala fogaan daw isku lahayn walaalnimo ninkii dilay hadduu cabasho dayn waaye xaajooyin duugaabay oo daalay baa iman waa lay damqaya inaan farama doonayn dhowaan baa dayuurad iyo faraslay dabaaldeg hadegdayn ku dhaha hooyaday diiqna hayskeelin caashana hadoomaroobin dhaha waad ka daantira
iyo noloqon igama dhaqayse halkan dhigaysa xaajada durbaan uga dhursugayaa dhimasho iyo noloqon igama dhaqayse halkan dhigaysa xaajada durbaan uga dhursugayaa andaqaqe ondame esta dhunto wandho payaye